السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mar labaad soo dhawaada dhalinyaro. Muuqaalkan waxaa kaga hadli doonaa sida loo isticmaalo chat GPT ama sida looga diyaarsado article ama sida kale ee aqoonta u baahan tahay uga faa'iidi lahayd chat GPT. Marka gaar ahaan waxaan xooga saari doonaa sida articles looga diyaarsado haddii aad tahay qof leh website ama qof leh websites ama qof leh blog ama blogger website leh. Okay, ayaan baran doonaa insha Allah sida loogu diyaarsado adigoo isticmaalaya chat GPT article ama post free ah oo aad u qurux badan, article free ah oo aan lahayn wax copyright ah. Marka af Soomaali baan ku diyaarin doonaa article-keena oo si easy ah inuu diyaarin doonaa. Marka insha Allah wadooyinkan maro ayaad mari doontaa. Chat GPT waxaan filayaa inuu ku samaysan yahay ama uu ku diyaarsan yahay chat GPT oo ah kan hadda aan dul taaganahay. chat GPT waan soo sharaxnay wuxuu yahay iyo sida loo furto la muuqaal hore ka sameeyay siba ka labada dambeeya aad faa'iido badnaa oo si fudud ku furanaysa. Okay, haddaba chat GPT isagoo in ognahay inuu yahay artificial intelligence oo ah maskaxda macmalka ahayd. Waxaan doonaa maanta inuu noo qoro article af Soomaaliya. Marka article af Soomaaliga ah ayaynu insha Allah ku qoran doonaa. Waxyaalo badan baad weydiin kartaa wax wal oo ku saabsan aqoon ama wax la barto oo weydiin kartaa everything waa ku furaya. Marka hadda waxaan xooga saaranaa qodobka koowaad sidee baynu article free ah uga diyaarsan karnaa. Okay, ugu horeyn markuu kugu soo baxo waxaad sameynaysaa meeshan search-ka way meesha wax la weydiinaya. Marka meeshan waxaan ku qorayaa article-kan doonayo inaan ka diyaariyo topic ama aan ka diyaariyo post. Marka marka horeysa headline-ka qori lahayd tusaale haddaad imika aad doonayso inaad ka hadasho waa maxay ganacsi walkaad ku qoraysaa. Marka waxaad rabtid inaad ka diyaariso ayaad xooga saari doontaa insha Allah. Marka aniga waxaan isku dayaa inaan ka diyaariyo post article aan ka qoro ama aan ka diyaariyo sidee online-ka ama habka ugu fudud ee online lacag looga shaqaysan karo ayaan weydiinayaa. Kolka macnaha waxaan ka dhigayaa title-kayga waxaan ka dhigayaa insha Allah sidee baa looga shaqaysan karaa online ama habka ugu fudud ee online looga shaqaysan karo. Marka su'aashaas baan weydiinaya isaga ka faahfaahin doona insha Allah. Marka anigu waxaan weydiinayaa hadda oo article ka sameynaya oo title ka dhiganaya insha Allah habka ugu fudud ee lacag looga sameyn karo online. Marka wuxuu iga qorayaa habka ugu fudud wuxuu ii sheegi doonaa online-ka lacag looga sameeyo. Marka kadib waxaan ku dhufanaysaa meeshan fallaadhan hore u jeedaa ku dhufanaysaa si wixii kaaga siiyo xaqiiqada kaaga sheego. Marka af Soomaali buu ku qorayaa haddii af Soomaali kuugu qori waayo meesha ka horeysa headline-ka marka qorisid topic marka bilaabisid ay xagga ka horeysa ka raacinaysaa af Soomaali kadibna hakad baad oranaysaa kadibna waxaad qoraysaa wixii aad u baahnayd. Hadda waxay nooga diyaariyay waa uu wadaa. Marka wuxuu ku qorayaa outlines wax la yiraahdo ama nidaam hababka ugu fudud ee online looga shaqaysan karo ayuu qorayaa. Okay, haddaad u baahan tahay inaad oodan u bogin wuxuu ku qoray waad ku celinaysaa mar kale oo halka intaad ku koobiyeyso ayaad ku dhufanaysaa fallaadh. Marka hadda waan laba jeer baan ku celiyay ilaa 3 jeer tii ugu wanaagsan ee soo saaray waa tana isla su'aashan baan ku celiyay. Marka wuxuu iga qoray outline-yadan ayuu iga qoray. Marka waad koobiyeysanaysaa isagoo saas ayaad koobiyeysanaysaa. Marka waxaad geyn kartaa article-kaagaas WordPress ama blogger website kaad leedahay. Marka hadda blogger website baan leeyahay. Marka blogger website baan geyn doonaa. Marka waxaad sameynaysaa waad koobiyeynaysaa xagaas aad xajin doontaa insha Allah dhammaantiis waad soo koobiyeynaysaa. Intaas soo koobiyana copy baan oranayaa. Marka waxaan ku laabanayaa blog-gayga ayaan ku laabanayaa insha Allah. Blog-gaygan ku soo noqonayaa. Marka post soo taabo si aad hadda WordPress isticmaalaysan qaybta post-ga soo gal. Marka post baan sameynaynaa si aan post-ga u diyaariyo. Marka horeysa maadaama wixii badan yahay oo uu headline-kii wada socdaan sharaxaadiisi meeshan ayaad ku soo koobiyeynaysaa. Marka horeysa meeshan ayaan ku wada koobiyeyna post baan oranayaa. Markaas mostly wuxuu ku oranayaa saas ku soo qorqorayaa. Marka waxa la sameeyaa copy-gan aad sidatay ayaa la qaadaa waxaad geynaysaa marka note-kaaga soo furo. Marka note-ka ayaa si fiican kugu koobiyeysmaya Samsung note-ka ama wixii kugu jiray note ayaad soo furanaysaa insha Allah. Marka note-ka markaad soo furato halkan ku koobiyeyso halkan marka ku koobiyeeyo waxaan ku laabanayaa markaasi website-kayga kadibna waxaan iska masaxayaa ama waan ka delete-ayaa marka ay madowga noqoto
waa marmarka qaar bay noqotaa, mar walba ma noqoto. Marka waxaan soo koobiyeysanaya kii node-ka ii yaalay. Copy-da markaasi kadib meeshan marka xaji kadibna paste ku soo dhig. Marka madowgu ka baxaya okay buu noqonayaa markaasi. Hadda waxaan kolkaas soo qaadananaa qaybta kale noo harsanayd. Marka qaybtaasaan qaaday marka koowaad. Hadda number 1 ilaa inta uu ina siiyey ayaan qaadanaa. Haddaynu yar eegno wuxuu ina siiyey, wuxuu yidhi number 1 waxa ugu horeeya ee aad ka shaqayn karto ama online aad ka shaqayn karto AdSense baa ugu horeeya buu yidhi, oo ah shirkad xayeysiina. Wuxuu ku xigsiiyey Amazon affiliate, wuxuu ku xigsiiyey online survey-gaas ku xigsiiyey. Sidoo kale wuxuu ku xigsiiyey codsiyada ama wixii lagu soo dirsado. Online tutoring buu ku xigsiiyey. Marka dhammaantood inta waan u bogay oo si fiican ayuu igu soo sharaxay. Marka waa koobiyeysanaya. Inta waan koobiyeysanaya markaasi. Number 1 ilaa iyo waxaan koobiyeynayaa inta aan uga baahnayn. Haddaad qayb ka mid ah u baahnayn waad iskaga tagi kartaa. Waxaan odhanayaa hadda copy baan odhanayaa. Kadibna waxaan tagayaa meeshan node-kayga ama Samsung node-ka. Kadibna meeshan hoosteeda ayaan saa ugu paste gareynayaa si aan u soo koobiyeysan karo. Haddii kale xagga kale uu madow iyo wax u saaraya. Marka hadda waan koobiyeynayaa, halkan ayaan ka koobiyeynayaa. Okay, waad koobiyeynaysaa copy-da markaasi. Markaad copy soo tiraahdo waxaad ku soo laabataa meesha uu kaaga furna blog-gaagu ama meesha aad doonayso inaad article-ka ku paste gareyso. Hadda halka inta hore watana waa iigu jirtaa. Marka waxaan odhanayaa hoos baan soo degayaa, meeshan baan xajinayaa, kadibna waan ku paste gareynayaa. Marka wuu ii diyaariyey oo wuxuu ii sharaxay habka ugu fudud online lacag looga shaqaysan karo. Waxaa jira habab badan oo lacag looga samayn karo online-ka, laakiin qaar ka mid ah buu yidhi hababka ugu fudud ayaa waxaa ka mid ah kuwan oo kaleeto. Marka kuwan ayuu ii diyaariyey. Markuusan kugu diyaariyo headline-kana isna waan soo koobiyeynaynaa. oo headline-ku waa kan aynu ka qornay marka horeba wax kan laftiisa weeyaan. Kana isagana soo koobiyeynaynaa saas oo yar xajini, kadibna copy-da markaad soo koobiyeyso isaga waxba node-ka ha geynin. Kadib meesha soo furo title-ka sare ayaynu ku koobiyeynaa. Markaasi halka paste ma ku niri intan ayuu inoo qoray. Marka sida looga shaqaysto AdSense ama AdSense macluumaadkiisa ayaynu kan sii hoos geyn doonaa. Haddaad rabtana inta waad ku diisan kartaa, laakiin inuu article-ku yar dheeraado ayaa qurux badan. Marka AdSense-ka nidaamka looga shaqaysto waa inoo qoray iyo AdSense wuxuu yahay. Marka rabin af Soomaali ugu qoro marka already shaxdi waan fahansanay. Marka waxaan sameynayaa inta waan koobiyin karaa waa weydiin kartaa. Waxaan ku laabanay horta AI-gii. Marka ku laabto xagan iga furan yahay. Marka isagoo qaybta saniska ah ayaan haddana waana waxba masixin baan qaybta sii gelinayaa. AdSense buu igu soo horreysay baan filayaa oo number 1 ka dhigay. Marka waxaan odhanayaa sida AdSense waa maxay AdSense ama sidoo u shaqeeyaa oo kale. Sidoo u shaqeeyaa AdSense ayuu kale ayaan sii qorayaa. markaas su'aashaasaan kusii xigsiinaya maadaama koobaad ay AdSense tahay isuu AdSense-kii wax iiga qoro. Marka waxaan odhanayaa siduu u shaqeeyaa AdSense baan odhanayaa markaasi. Marka falaadhan ayaa ku dhufanayaa. Wakaasa AdSense waa shirkad ku taal buuli Google oo ku ogolaanaysa inaad ku xirto website-kaaga ama blog-gaaga ads. Macnaha waa uu qoray oo ka wadaa marka isaga ayaa qoraya. AdSense buu ku qoraya markaasi. Haddaadan rabin inuu sii dheereeyo stop baad odhanaysaa oo meesha stop ku qoran tahay marka ku soo baxdo ayaad stop ku dhufanaysaa. Hadda si fiican ayuu nagu qorayaa. Waa AI heer sare ah runtii oo tayo badan leh. Marka wuxuu qorayaa sida looga shaqaysto AdSense iyo wuxuu yahay sharaxaya. Marka hore waxaan weydiinay sideeba online looga shaqaysan karaa. Marka wixii online laga shaqaysanaya meelihii loo mari lahaa ayuu hadda inoo sharaxaya qaar ka mid ah. Marka wuu ii qoray waliba article dheer buu ka qoray oo meelihii la mari lahaa waxa ku saabsan. Marka haddana baahdo dhammaantii soo wada koobiyeysanaya. Haddii kaleetana waan ka tagi karaa qaarkood, laakiin maadaama dad wax u sharaxayso inuu wixii fahmaa fiican. Sida uu isticmaali karto AdSense waxaad u baahan tahay inaad samayso waxyaalaha soo socda. Marka uu sharaxaya AdSense-gii si aad uga shaqaysan lahayd iyo wax laga baahan yahay. Samayso Google AdSense account buuli ku xiro website-kaaga ama blog-gaaga buuli AdSense. Wad haysataa buuli code ku yaala website-kaaga ama blog-gaaga ama book-gaaga kolba wax bay yiraahdaan. Ka dhiganaada marka uu ku qoray
wadooyinkaad mari lahayd si aad AdSense uga samaysan. Marka waa soo koobiyeysanaya maadaama ku qancay dhammaantiis waan soo koobiyeysan. Haddaadan ku qancin markaasi mar labaad ayaad ku celin kartaa. marka waxaa ku dhufanaya copy baan ku dhufanaya intaa uu iga qoray baan dhammaanteeda highlight saaray. Marka copy baad ku dhufanaysaa ilaa xagga hoosan highlight ka saartay. Marka copy ku soo dhufto note-kayga ayaan imanayaa. Haddii kale had ama madow ayuu wax yar saari doonaa haddaan sidaa ugu paste gareeyo. Marka note-kaaga iska imo ama meesha wax ku qorqoratid marka halkan ku paste garee. kadibna markaan ku paste gareyso mar labaad ayaan sii koobiyeynaynaa haddana copy-da markaasi kadibna blog-gaaga hadda ku laabo. blog-gaaga markaas u soo laabato AdSense ayaan doonaa in loo sharaxo oo number 1 marka hoostiisa ayaan diyaarsaday. marka hoostiisaan taabanaya waan xijinaya kadibna paste baan ku soo odhanaya. marka article-kii uu ka qoray AdSense wuu ii diyaariyay. Amazon affiliate ayaa isagana iigu xiga. marka Amazon affiliate isagana sanad u koobiyeynaysaa. haddii aad u baahan tahay sidii imkaan u qornay si lamida unbaad u qoraysaa dhibaato ma laha markaasi. iyo isaga san noogu taagan meeshan ayaan imanayaa. waxaan sameynayaa meeshan ayaa ku paste gareynayaa Amazon affiliate-kii ama si topic-ah waad uga hadli kartaa. okay marka waxaan qorayaa waa maxay ama siduu u shaqeeyaa. waxaan oranayaa siduu u shaqeeyaa Amazon affiliate xagga hore man af Soomaali ka raaciyay. marka falaadhan ayaa ku dhufanaya. marka isaga ay sharxi doona siduu u shaqeynayo. af Soomaali ma ku wada qoray dhammaantood. wuxuu yidhi waa program kaas oo bixiya buu yidhi commission-ka aad ka heli karto marka aad iibiso alaabaadka Amazon ee dadka isticmaala website-kaaga ama boggaaga. marka macnaha waa affiliate marketing waa kilinkiyada iyo wax la qaadi jiray ama aad suuq-geynta sameynaysay. marka suuq-geyntana online waa looga shaqaysan karaa buu macnaha guudka wada. marka mid walba saasuu kaaga qoraya headline-yada aan diyaarsanay. waxa headlines kala yiraahdaa waa kuwana mar kale si gaar ah iyagana u sharxi doona waxaan iyo headlines-ka iyo waxaan. Amazon imika waa headline kana waa headline ama waxa weeyaan outline baan u jeedaa. marka outline-yada Amazon waa outline kana waa outline walba wixii aad rabto ayaad markaa ka diyaarinaysaa. hadda waxaan filayaa marka uu qoraya aad buu u dheer yahay laga yaabo inuu aad kuugu dheereeyo ama uu wadooyinka la marayo aad u badiyo. marka way fiican tahay maadaama qofkii aad doonayso inuu si fiican wax u fahmo ama waxaan aad sharaxayso u fahmo sida uu qoray aad ugu fiican dhammaanteed markaa wada koobiyeysa mar walba. toddobada qodob ayaa sida looga shaqaysan karo Amazon affiliate uu inooga sheegay. marka waad si akhriyaysaa adiga mar walba waa khasab. aniga hadda muuqaalka dheeraanay haddana idhaah waan akhrinaynaa. marka waan koobiyeysanaya sidii marka hore waxaan dhiganayaa note-ka kadibna waan kasii koobiyeynayaa sidii imkaan idin tusayay si lamida ayaan u soo gelinayaa website-kayga. hadna sidaas si lamida unbaad u soo gelayso. marka meeshan ayaan paste ku odhanaya. marka mid walba saa isagana uga diyaari camera ka diyaariyay online-kan online survey-gana waan ka diyaarinayaa. codsiyada ka ku qoran yahayna wuxuu codsiyada uga jeeda marka sharaxo waan uga diyaarinayaa. okay mid walba saasaad uga diyaarinaysaa marka online survey ayaa xiga. marka online survey aad doonaysaa ka diyaarsay isna halkan ayaa laba SPC gelinaysaa kadibna online survey wuxuu yahay ayaad sharaxaysaa macnaha ma ayaad u diraysaa isaga kadibna ku soo sharaxaya kadib meeshana soo gelinaysaa. marka san uga diyaarsa article-ka aad ayuu qurux badan yahay. sawirro ayaa la soo raaciyaa inta badan ama saa looga shaqeeyo. haddaan sawir soo raacina dhibaato ma jirto. laakiin hadda hal sawir haddaan tusaale ka soo qaadano inta badan waxa laga soo download sawirrada free-ga Pixabay ama Pixels. marka tusaale hal sawir oo kooban tusaale marka waxaan iskaga soo qoranayaa sawir la xiriira sida online looga shaqeysto. kolka online waxaan odhanayaa tusaale online works baan odhanayaa si uu inooga siiyo sawirro ku saabsan wax shaqooyinka online-ka ah. okay sawirradan dhammaantood waa free. kuwan labada horeeya tusaale waa free. waxa ku xigo dhan waa free. dhammaantood waa free. waa kuwana sana u wada yaalaan. okay mid kamid ah markaa iska soo download garayso. tusaale kaasna aan soo download garaysanayaa download baan odhanayaa markaas. kadib ku soo laabo website-kaaga. marka meesha ugu sareysa ayuu sawirku qurux badan yahay. meesha ugu sareysa ayaan dhiganayaa sawirka. halkan ayaan maadaama sawirkan uu soo download garaysmay meeshan ayaan ku dhufanayaa. hore ayaynu aragnay saa loo soo geliyo markaa sawirrada. sawirkii baan soo geliyay markaa select baan odhanayaa. marka sawirkii wakaas waa ii soo galay. xogaa haddaan baahan waan yar weyneynayaa large baan ka dhigayaa. marka sawirkii wakaa waa ii soo galay. sawirkii meesha uu igu jiraa SPC-yadaasina uma fiicna article-ka. marka muuqaal article-ka u gaara ayaan samayn doonaa iyo sida article tayo leh loo qoro. marka hadda laakiin sidii ChatGPT aad article-ka uga diyaarsan lahayd ayuu muuqaalkeenu ku saabsanaa.
marka hadda waan aragnaa saasuu inoogu qoran yahay articlekuna aad ayuu qurux badan yahay marka inta ugu horeysa waxa wanaagsan kan in ayaa laga dhigtaa inta badan headline laga dhigaa maadaama yahay waxaan ka hadlanay kadibna waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay p daasa taabanaysaa si wixii uga dhigo wax yar waaweyn okay kadib waxaad oranaysaa publish okay articlekan ayuu inoo diyaariyey oo uu inoogu qoray AI marka hadda waan eeganaa view baan odhanaa waxaan eeganaa bal articleku inoo qoray noocuu u eegyahay okay articleka waa kana waa articleka aadka u qurux badan midda kale kelmadihiisu ay ka badan yihiinba dhowr kun ay gaadhayaan oo kelmadood oo kaasa si wacan ayuu noogu qoray maasha allah si fiican ayuu noogu diyaariyey markaa saasaa looga diyaarsadaa AI-gan marka AI-gan keliya kuma saabsanaan doono insha allah keliya ma soo dadka ma siiya artikalada laakiin aqoon fara badan oo kale ayuu leeyahay haddaad wareysato oo xogaha xataa ku saabsan waddankaaga keliya ka wareysato xogo fiican buu siinaya waxaan rajeynaya inaad saa ku fahantay markaasi sida artikalka markaa looga sameeyo AI-gan waana easy af Soomaali ayuuna ku qoraya Englishka saas si lamid ayaad ku qoraysaa tusaale haddaad qorto what is online works haddaad qorto wuxuu ku qori doonaa isagoo English ayuu ku qorayaa waad weydiinaysaa keliyata waliba Englishku aad kaga dheeray markuu qorayo waa kana tabtii Soomaaliga nagu qoray ayuu Englishku nagu qoray marka waxaad u baahato mar walba halkaas ayaad weydiinaysaa marka uu ku sameeynaya marka freelancing buu soo horeysiiyay markii inaga wuxuu nagu soo horeysiiyay AdSense wakaas saas uu qorayaa sida qurux buu kugu qorayaa tan English u baahatana marka waad koobiyeenaysaa kadibna copy and paste wax la yiraahdo oo keliyata un baad isticmaalaysaa intaas inay nagu filan tahay rajeenaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh